you so much. Karibu. Mama. Moja. Pizza. wakiilka dumarka ismaamulka Wajeer Fatuma Cabdi Jeexow ayaa maanta dugsiga sare ee gabdhaha Furaha Girls Secondary School ee ku yaala gudaha magaalada Wajeer waxa ay xariga uga jirtay lacagta xafiiskeeda oo ugu tirigalay dhanka waxbarashada ee loo yaqaano baasariga taasoo ay sheegtay inay ugu tirigashay caruurta agoomaha iyo kuwa rajooyinka kuwa qoysaska danyarta ka soo jeeda iyo sidoo kale kuwa naafada ah lacag kor u dhaafaysa 7 milyan ayaa xariga kaga jartay halkaasi macallimiintii iyo dhammaan mas'uuliyiintii ka soo qayb galeen oo halkaasi ka hadleen ayaa u mahad celiyeen wakiilka dumarka ismaamulka Wajeer Fatuma Jeexow ayaan ugu mahadsantahay inaan maaragtay kula wadaagna waqtigaada adigoo tiragalkaad aad yahay inaad u soo jeediso caawimaad ardayda ka dhigata iskuulaha kale ee county-gan Wajeer aad iyo aad u mahadsantahay annaga haddii aan nahay dadka madaxda ee county-ga waxaan rabnaa inaan ku xaqiijino wadajir inaan kula istaagna intaad maaragtay aad noo adeegaysa ama ummadda reer Wajeer aad u adeegaysa mudana women rep oo xafladda maanta sidaan nooga soo qaban qaabisay oo maxad ugu celinayno lacagta hadda ay launch gareyn rabto baasariga sida ay u gaarto caruurteena midda labaad waxaan mahad u celinaynaa maamulaha iskuulkan Madam Deqa oo soo gaarsiisay iskuulkan maanta meesha uu taagan yahay asagoo iskuulka waqtigiisan uu yar yahay laakiin markii la fiiriyo gabdhaha iyo iskuulka xagga dhismada planningka uu ka weyn yahay iskuulli badan waxaana mahad aan u celinaynaa maadamta oo maamulaha iskuulka Madam Deqa waxaan ku baraarujinaynaa caruurta gabdhaha walaalahayna iyo caruurta gabdhahayna in looga baahan yahay in ay si fiican u akhristaan ay ka faa'iideystaan inta oo resource oo halkan la geliyay oo la tartamaan iskuulada kala waxaan rabaa inaan u sheego ardayda iyo macallimiinta iyo maamulayaasha meesha iskugu imaaday tacliinta waa qaybta ugu muhiimsan oo qofka ibnaadamka noloshiisa laga dhis marka laga soo hera tacliinta marka laba qaybood waaye mid diiniga iyo mathematiga waxaan rabaa inaan idinku booriyo gabdhaha na hor fadhiyaan waxa ugu horeeya oo idinka raba inaad la imaadaan waa inaad ilaahay idin uumay oo adduunka idin keenay aad ka cabsataan wixii idin farin aad qaadataan wixii idin ka reebin aad ka hirtoodaan marka weynaatid friendskaaga inta ugu hari doonta hadda marka ka qaada gabadha aad saaxiib la noqonayso waa gabadhe mid oo ku gelin doonto miya TikTok oo aad soo dance gareyn doonto students ugu badan TikTok dadka gala Soomaa oo ku dance gareeya oo waxyaalo loogu talagelin sameeyo dadna way ku akhristaan waxay ka raadiyaan waxay ka bartaan marka wax kasta waa sida aad u isticmaashid saddexda shay oo la sheegay waalidka hooyada ku ka tahay macallinkaaga iyo nafsadaada intaas wax u tar qof kale waxba u tarin waxaan dumar ku nahanina meesha ay ku jiraan waa ogtiin ma tahay mise maaha yaada gabdhahan la hadlaa waxaan dumar ku nahan meesha ay ku jiraan ma ogtiin soo meel fog maaha ma amara la iskaga qaadan karaa ya sasabasho in linkaga qaato ma ogaani ma tahay mise maaha hataa haddaa liinka sasabta ha ogolaanina maxaa yeelay sasabashadaas waa 5 daqiiqo kale xaliin sasabanaa berri waa lagaa dhaqaajin noloshaadin waa lagu dheelay saas martiin aniga hooyaan ahay so your parents are expecting you to be like that haddii noloshaas dhaxda ku goysiin hooyadii kugu soo dhimatay oo jika ku galay salaad inaad soo akhristo ana jaahil hay gabartay jaahil ma noqonays ordi inaad ma aragtay aad ma aragtay niyada ka jabisiin maaha hooyooyinka niyada u dhisa hooyo waa akhrisana ilaa meeshii ila gaarta iisoo duceey adigana dadaal muuji dhanka kale Fatuma Cabdi Jeexow oo ka hadlaysay lacagta ay maanta xariga ka jartay ayaa sheegtay in muhiimadda gaar ay siinayso qoysaska danyarta caruurtooda iyo kuwa agoomaha wa rahmatullahi wa barakatuh
magacayga waa Faadumo Jeexo wakiilka haweenka ismaamulka Wajeer maanta waxaan joognaa iskuulka Furaha Secondary waxaan xirigjar ku suubinaynaa basarigii women rep ama ngaf oo ah 7 milyan iyo 200 basarigan waxaan rabnaa inuu meel walba gaaro anagoo og inuu lacag yaray tahay waxaan rabnaa inaan dadka curyaanka ilmaha agoonta iyo dadka aad u liidan inaan ka bilowno marka waxaan dhahayaa dadkii macallimiinta maqlaysa inta maqli doontaba inuu iskuulahoodan u imaado doono oo ayagana la tashan doono insha Allah ilmihii ugu liidanayna siiyaan oo anagana xafiis ahaan si cadaalad ku bixino waxaa kaloon u sheegayaa ayagana dadka bulshada reer Wajeer inay foomamka ay ka baxsadaan saybaga mise xafiiskayga ka qaataan si ay u buuxiyaan waxaan u sheegayaa inay lacagta yar tahay saddexdii qof oo sheegnan ka bilaawayna wixii kale naga batana anaga iskale reer Wajeer for those few remarks intaas baan ku dhaafaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntiina qaar ka mid ah waalidiinta ku dhaqan Wajeer ayaa u mahad celiyeen wakiilka dumarka ismaamulka Wajeer adiga hortaana wimrab imaade malaha marka waxaan ka doonaynaa iskuulka inaad gacanta ku qabato oo meesha maanta joogo email ka sareysa isku wada insha Allah ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inaad aad u fiicnaan doono gabdhahan ay fiirsadaan kuwa ayaga lamid ah inay madax noqon karaan oo gaal u soconin kuwa markay ka galbadaan iskuul ka galbadaan joqoraan oo dirbiyaal kulama ay ka qayb noqonin ma dhantana aydan Allah garab gala intaan oo gabar ah oo kala aabe oo kala hooyo oo kala aqli ay gacanta ku haysaa ayda ilaahay kuma ceedeeya anaga waa ugu duceynaynaa waxaan rabnaa Faadumo Jeexo inay gabadhayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan ku guuleysanay waan soo dooranay maradaan u xiranay dhaxdaan u xiranay alxamdulillah si ugu guuleysanay ilaahay waa noogu soo gali gabar duur taagan wali ma arkin waxa fiicnaan kara iskuulku ninka maamulaha ka ah gabadha maamulaha ka gabdhaha waa ku dadaashay Allahna la qabto Allahna la kaalmeeyo ayagana kuwii dadaalo oo maadantooda xushmeey oo Allah ka dhigo kor Allah ka dhigo si kastaba ha noqotee wakiilka dumarka ismaamulka Wajeer ayaa ballan qaaday in ay si cadaalad ah ugu shaqeyn doonto shacabka Wajeer Cabdiraxmaan Mucaawiye warbaahinta ismaamulka Wajeer